waxaanu nahay dad walaala ah dad ehela seedi iyo abti isku wada mid baynu nahay durriyadii baynu wadanay sida aan idiin sheegnay annagu ma nihin dad siyaasad wada dad wax qarinaya dad xusbi soo dirtay ma nihin ilaah baan isaan og waxaanu nahay dad tabliiqeena oo tabliiqeynaya oo tabliiqaasi ka bilaabmay dalka UK Yurub ka bilaabmay waliba xusuusiyan magaalada London ayuu ka bilaabmay waxa bilaabay qurbo joogtii labadeena beelood ayaa bilaabay iyagoo in badan wadanka marmaray oo ragii dibadaha ka yimid wadanka mareen oo ay u muuqatay dhibaatada labada reerood daraasad lagu sameeyay ayaa sababtay taasoo ahayd qabyaalad ayaa kowka uqaasha iyo aqoonyahanka labeenta labada reer ee halkan isugu yimi habar jecliya habar yoonis waxaan iyo waxgaradka booliiska militariga saxaafadda dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad baanu ilaahay bay mahad u sugnaatay waxaanu idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta midaysan ee qiimaha badanna baanu idinka mahad celinaynaa aad baanu idinku mahadnaqaynaa waana soo dhaweysana ilaahay idin soo dhaweeyey waxa aynu ku weynay horumar la-aantaa dalkeena ka jirtaa waxay ku timid tawfiiq la-aanteena ku timid wax wada doonasho la-aanteena ku timid ku caban mayno madaxda ayaa ahayd reer galbeed innagaa u diidnay inay wax noo qabtaan innagaa kala soconnay war maanta inaynu isku duubnaano oo wax wada qabsanno oo ubadkeenna uga tagno wax wanaagsan ma wada qaadanaa wafdiga reer burco halka kan inagu soo booqday waayeelka kale ee ceelafayna oqaasha maxaan ku idhahdaa xildhibaanada waxgaradka iyo waayeelka kaleba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waa ilaahay mahadii had iyo goor waxaynu canaanin jirnay wadadaa dheer wadadaa dheer ee galbeed inagaga timaada waxaynu odhan jirnay wax xunun baa nagaga yimaado oo xumaatada dhulkeenna taallaa galbeed bay inagaga timaadaa horta mid waa ilaahay mahadii oo maanta caawa haddii reer burco innaga ina waaninayaan waa ilaahay mahadii waa qaadanaynaa ku bishaaraysta waxaa wanaagsana aan noola timaadeen markaygu ku soo gaabinaya waayeelku wanaagga ay inoola yimaadeen waynu ka qaadanay reer ceylaf weyn haddaynu nahay ballanna waa qaadaynaa wixii inaga xunna aan meel uga soo wada jeedno waxaanu leenahay waxa wanaagsan ee sideen ee midnimada ee ay noo keeneen waayeelka burco ka yimid waa idinkaa waxaanu wax wanaagsan baa sideen waxa wanaagsan ilaahay idinkan xasanaadkiisa ay siiyo labada beelood aad tiraadeen arrintooda iyo dibidhaca wixii ku yimid baa laga damqado ka baraarugeeyo la doonayaa in la iska kaashado midnimada iyo nabadgelyada aad iyo aad baa ugu mahadsantahay idinka iyo kuwa kale ee waxakayba erayna waa kusii daraynaayo beerahayna la degan dibadhacayana inala qabaan iyana waxaynu doonaynay iyana la doonaynaayo waa fidinaysaana iduna iyana waa u tegaysaa way ajiibi doonaan